بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة هي حلقات كأني مع جنود إبليس وحين بلن قادني قيبا كالو إيجا كميدة إن قادا ديجي دونو قذف كالدين تايو جيستين xalaqadaha soo socda oo noqon doona 5 iyo 6 gaari karaya waxaynu ku gorfeynaynaa ama ku soo bandhigaynaa kufriyaatu Cabdulqaadir Kishki kufriyaadka uu ku dhacay ee diinka baxa waxaan filayaa tii hore aan ka yarayn inaad arki doontaan haddii kuwii hore qoraal ay ahaayeen hadda waxaynu la macaamili doonaa videos cod keliya wax kuma salayn doono laakiin keliba video ah oo sida uu ku yiri waxaan ka sheegayno ku cad yahay baan soo bandhigi doonaa waxaan rabaa hordhac inaan u sheego inuu WhatsApp igala soo xiriiray waxa lagu haystan ay weydiiyey inaan u qoray ilaa 3 qaybood oo kamid ah ونديب كتلمامي دونه ديب دما شقر وقام مقال waxay ugu maqala inay culumo Canada joogteen ee la kulmaan doonayaan wixii ka soo baxana waan arki doonaa laakiin marna kufriyaadkan inaan ka shifna in la daayo ma aha xalaqadan maanta wax badan oo hoos oo faahfaahin ma gari doono laakiin waxaan rabaa man huwa Cabdulqaadir Kishki inaan iraahdo si kooban faahfaahintuna dib bay ka iman doontaa insha Allah taala xalaqadaha dambe waxaan rabaa inaan iraahdo si gaaban haddaan idiin sheego Cabdulqaadir Kishki qadarka markii la yimaado Ilaahay qadaray waa macbad al-Juhani wa Ghaylan ad-Dimashqi markii sifaadka Ilaahay la yiraahdana aniga ma dhihin isagoo qirqiranayaan idiin keeni doona masalada qadarka markaan ka hadlayo markii sifaadka la yiraahdana macal Jacd ibn Dirham waay isagaa inkirayo diidaya wixii Jacd diiday loo dilay ilaahay kallama Allah Musa takliman yattakhadha Allah Ibrahim khalilan isagoo qiranayo video qeexaya in tusi doona markeeda gaar xalaqadeeda ka hadlay hadii la yiraahdo Cabdulqaadir Kishki wa ma'a Jalaaluddin ar-Rumi fi wahdati al-wujud xalaqadan aan ku soo bandhigi doona isagoo la Jalaaluddin ar-Rumi ba tusaale waan ku daydaa Jalaaluddin ar-Rumi wuxuu ahaa rumaysnaaye hadalka uu soo qaatay oo ku salaysan yahayna waan soo bandhigi doona hadii la yiraahdo saxaabada la yimaadana maca raafida waay ayda wax ka sheega aflagaadada tobanaan saxaabo ciida ka badan maca raafida waay sida shiicadii buu caaya saxaabada diintoodu tuhmaa diinteena axmed inay fasaadiyeen buu tuhmaa waxaan diin ahayn dadka inay diin u sheegeen oo nabiga uga baan sheegeen buu ku eedeeyaa iyadana masalatul qadar markaan gaaro baan tusaale iyagu idin maqashiin doonaa isagoo hadlaya Kishki markii sunnada nabiga la yimaado macal mustashriqiin waay Gold Zahar iyo Joseph Shakhadi iyo Kron Kramer iyo ragaas laakiin ma garanayo sanadkiisu inuu caali yahay Adnan Ibrahim iyo Maxamuud Abu Ray umara tusaale iyageedana markaan sunnada ka hadlayno u dhaleeceeyay aflagaadeeyay baan soo bandhigi doonaa insha Allah taala intaasi waa shakhsiyadda qofka oo kooban dhinaca kale haddaan iraahdo ninka la yiraahdo Cabdulqaadir Kishki nin wax yaqaan ma nin jaahilawi sunna iyo culumteedna ma yaqaan عقيدة يا علوم تنا ما يقان شريعة وحبك ما يقان كليه وكوبي أم بستي وبسيدة وحكسوا أقريا هل كتاب يا الله كتابه أم عدو التلمانتي أما وحو الرب وكرادين يور رادية أنت بدنا وحو الدين تكود رأي عدنان إبراهيم بكسوا قاتا وحكر لما وحناها كدره لقى يا مرة قاركود وكبحه لكن وحي سوى كوبي أم بستي واي aqoon la'aan fara badan
baa sunnada ka haysa ahwaa badanna waa ku jirtaa. marka koobaad xadiidkiiyo culumtiisa waxba kama yaqaan bidaliil qadarkana waa ugu tegi doonaaye kutubu saxiixa bukhaari iyo muslim iyo wuxuu u tiiriyaa waxaan ku jirin markuu qadarka ka hadlayo wuxuu leeyahay xadiidka khalaqa allaahu khalqa fii dulmatin sixaaxu ku yaalla kadib waxba kama jiro laa bukhaari walaa muslim inamaa imaamu axmed iyo sunanka qaarkood baa wariyey. markuu ka hadlaya abu hureyre inuu maaga doonayo wuxuu leeyahay muslim baa wariyey min can busr bni saciid abu hurayra noo sheegi jiray can inabiyi wa can kacbin way isku dhex darman jireen. haddii la yihahdo muslim baa wariyey waa fii saxiixi curfiga ahlulcilmiga iyo muslimka la yaqaan saxiixu muslimna kuma jira aharkaasi. muslim meel kale ma ku wariyey munaasabadeedaan la sugaynaa insha allahu tacaala. laakiin haddii la yidhaahda muslim baa wariyey ereygaa waxaa iska lehoo sidaa dadka ugu khalday abuuraya fi kitaabkiisa adwaa cala sunna almuxamadiya sidiina waxaa uga soo guuriyey cadnaan ibraahim sida mowqiciisa ku jirta isna sidii unbuu koobi ambesti ugu soo sameeyey dadka. laakiin busr bni saciid abu hurayra noo sheegi jiray can inabiyi wa can kacbin fii saxiixi muslim kuma jirto. waxaa ka mida in ruwaadda qaarkood uu u tiiriyo sunan sixaaxo dhan inay ka wariyeen. wuxuu tarjamo u samaynayey nin la yidhaha khaalid ibni salamata bn alcaas alfa'fa tarjamadiisii wuxuu ku daray in uu ibnu xajar fi tahdiib ku sheegay inuu umarada gabayadii nabiga lagu caayay u tirin jiray. kadibna wuxuu yidhi sixaaxoo dhan baa ka wariya waa kadib. bukhaari waxba kama wariyo muslimna hal xadiid buu ka wariyey oo ah kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanih xadiidka caaisha ah. araygan laleeyahay khaalid ibni salamata alfa'fa lagu dhaleecaynayana wax jira ma aha sax ibnu xajar laakiin isagu iskama dhihine wa qaala ibnu caaishata buu yidhi. lakiin waxaa ficnay hadduu ra'yiga ibnu xajar raba inuu ogaado taqriibu tahdiibka inuu tago wuxuu leeyahay ma sugna wax bidcaa inuu galay irjaa inuu galay nasbiga lagu eedeeyey waxba kama sugna buu leeyahay wa sadaq lianna riwaayada odhanaysa irjaa iyo nasbi buu ku jiray waxaa wariyey maxamed ibnu xumayd araazi can jariirin qaala maxamed ibn xumayd araazin alxaafid alkadaab baa la yihahda mashhuur wey. waxaasoo kale rag culamo aima ah in lagu dhaleeceeyo waa nin meeluu maray iyo geeduu ku xoqda daydeeya wey. laakiin ereygaas sixaax oo dhan baa ka wariya kadib waxba kama jiro. muslim baa halkaa xadiid yadkuru calaa kulli axyaanihi wariyey. amaa bukhaari xadiidkaas isagoo mucallaqu wariyey laakiin sanad ma sheegin in la yidhahdo sixaax oo dhan baa ka wariyey ma aqaana meesha uu ka keenay xataa haddii uu rumuusta tahdiibka eegi lahaa inaan bukhaari ka warinna waa arki lahaa muslim keliya muslim halka xadiidku ka wariyey. waxaa ka mida saxaabada qaybo badan oo ka mida wuxuu ku tilmaamay dad aan waxba garanaynin dadaan diinta nebi maxamed iyo diinta yuhuudda kala aqoon dad intay u yimaadaan niman yuhuudoo soo islaamay waxay diin ahaan ugu sheegeen nabiga u tiirinaya. ninka maanta yuhuud intuu wax ka wariyay kacb alaxbaar siduu ku sheegay waan ka hadli doonay awlaadu munabih iyo cabdullaahi bni salam xataa saxaabiga jaliilka ahaa iyo inay diinta yuhuud ku darayaan saxaabadan kale ee ka warisa israailiyaadka ragga wariya abu hureyre dadka ugu yar buu ka mid yahay ibni cabaas baa ka mida ibni cumar baa ka mida cabdullahi bni camr alcaas baa ka mida nabigaa fasaxay sal slam diin lagama dhigi jirin. laakiin in la yidhaahdo caqiidadoodii bay diin ahaan inoogu wariyeen waxay qoladaa ka maqleen bayna nabiga saareen saxaabadu beenaalayaal wey ama maba kala garanayaan diinta nebi maxamed iyo diinta yuhuud ma kala yaqaanaan. kuwii soo islaamayna waxaa laga dhigay dad diinta inay fasaadiyaan usoo islaamay sida cabdullahi bni salaam iyo ka midka ah. waxaasi waa dhaqankii raafidada iyo shiicada waay ma aha kelib waxaan arkay weli abu hureyra waan ka noqday abu hureyra ma aha saxaabada wax ka nabadgalay baa yarba saxaabada ka nabadgalay baa yarba. marka la eego axaadiidta intuu saxiixa mutawaatirka aad diido saxiixa mutawaatirka inuu diido buu dicaaf iyo mawduucaad daliishanaya. muxaadaradu ku jeediyey kashki waa kuma kooxdee ka tirsan yahay wuxuu ku sheegayaa waxaa laigu eedeeyey falaasifadaad wax ka qaadatay wuxuu yihi ha nacam nabigaa yidhi sal slam alxikmatu daadaratu lmu'mini xayثuma wajadaha fahuwa axaqu biha waa la wariyey walam yasix
sina uma asaxayo xadiidkaasi waana xadiid abi hurayra abu hurayra waa adigii lahaaba ahlu kitaab israa'iiliyiin buu qaataaye markuu mid saxiixa wariyana ma diidi mid daciifoon kaba sugnaaninna ma ku nabi mar kale wuxuu leeyahay aniga ummadda nabad iyaan ugu yeerayaayoo nabigaa yidhi halaathun man jamacahunna faqad jamaca aliimaana nabigaa jamciyey saddex ninkii sukana imaan waa jamciyey alinsaafu min nafsik iyo salaamtu caalamka la gaarsiiyo walinfaaqu min aliqtaali xadiid maaha waa qowlu camaar ibni yaasir sidaasoo kaloo fara badan buu xadiid mawduucaad iyo been iyo dicaaf iyuu deliishanayaa markuu isagu rabo wey markuu rabana sixaaxoo diidayaa markuu sunnada nabiga ka hadlaya sal ly salam inaan la qorin oo uu tacninayo waa arki doonaaye wuxuu deliishanayaa abubakar baa reebay cumar baa reebay wa kulluhu laa yasix laa cumar walaa can abubakar nahyaa kama asix wuxuu ka cararayaa cumar oo asaxday inuu qoray waraaqa axaadiida u qoray cabdiraxmaan bin camr caas xilliga nabiga inuu qori jiray abu hurayriya ay wada qireen nabigu inuu amro uktubu liabi shaahin yiri waa u tegi doonaa kuwii asaxayna waa ka cararaya kuwa dicaafka iyo mawduucaadkana waa diidaya mar kale taariikh ahaan nin taarikh wax ka yaqaana maaha dadkuu maagay awlaadu munabih baa ka mida wahb ibnu munabih hamnaam ibnu munabih khaylaam ibnu munabih caqiil qaar maslamiya cabdullahi bay ku dareen wuxuu yidhi niman yuhuud ahaa weye waa kadab been wey awlaadu wahab waa farisiyiin reer yaman ahaa aabbahood islaamay badankood islaam ku dhashay wey wahab baa israa'iiliyaad wariya isagaa hiwaayadii lahaa oo kutubta loo soo gedi jiray waxaa dabcan riwaayada le waa isaga iyo hamaam inta la yaqaano isagu abu hureyre waxba kama warinin meelay isku arkeenna lama sheegin hamaam baa nin safar iyo ghazawaad badan ahaa walaalkii oo ka weyna kutubta u soo gedi jiray hamaam baa abu hureyre arkay axaadiis safxana waraaqa axaadiisna ka qortay oo ka wariyey awlaadu munabih markay xabashidu qabsatay yaman bay u qayshadeen faristii xilligaana boqor waxaa anuu sharwaa ninka la dhihi jiray ciidamaad u fara badan buu usoo diray xabashidii bay jebiyeen waddankay degeen dadkii bay guursadeen way dhaleen al abnaa baa la yidhahda dadkii meesha isku dhalay ee faris ka yimid halkaasay ka soo jeedaan laakiin yuhuud asil uma galo diinna uma gasho haddii wahab intuu kutub ururiyey uu bartay awlaadu munabihee kale maxaa ka galay asal uma dhalanin diin uma haysanin kumaba dhalanin gaalnimo xataa aabbahood baa islaamay wahab ilma munabih ibni kaamil baa la yidhahdaa aabbahood iyo awowgoodba yaman bay ku dhasheen marka qofku inuu baxir taariikhda akhriya way fiicnayd inta dadka akhyaarta ah uu tuhmay ilaa u gaarsiiyey saxaabigii abu hureyre ah inuu tuhmo oo nin yuhuudi oo hamaam buu wax ka wariyey la yidhahdo jariimada intaa la eg taariikhada jahliga taariikhda eg waxaa ka mida ninkani cid kasta abu hureyra markuu ka hadlayay wuxuu yihi nabigu sanad iyo xoogay mise 2 sana iyo waxbuu la noolaa 47 sanana yuhuud buu la noolaa wa kadaba caduwullahi abu hureyre xaggee buu 47 sana kula noolaa madiinuu deganaaye sukii madiina yuhuud laga raray maaha yay madiine isku arkeen oo riwaayad israa'iiliya wariye kacb alximyari baa muddo kooban joogay hadduu ka wada nabiga dhimashadiisii kadib abu hureyre 47 sanuu noolaa muddo dheer waa noolaa laakiin muddadaa dheer madiinuu joogay abubakar buu la joogay cumar buu la joogay cuhmaan buu la joogay ilaa aakhirih ilaa madiina uu ku dhintay radia allahu canhu wa ardaah warkan 47 buu la noolaa cadnaan baan ka akhriyay isagoo leh cadnaan asalkiisana wuxuu ka soo qaaday aburaya kitaabkiisa sheekhu lmadiira abu hureyre kitaab uu ku caayuu qoray kitaabkaana waxaa laga soo qaaday cabdulxuseen nin la yidhaahda kitaab uu qoray oo raafidi oo shiici ah asalku meeshuu galay ee waxaan qurunka la ururinaya saxaabada lagu caaya maarta abu hureyre 47 sana la noolaa yuhuud been wey waxba kama jiro nin taariikh yaqaana iyo nin xog hayana oo ilaahay ka baqayana warkama yidhaahdo khaylaani dimishqi iyo qisada cumar cabdiis dhex martay dib aan qadarka ugu noqon doonaa uu ka been sheegay isagana kutubtii taariikhda ee muslimiinta kama soo qaadan arrinta cumar cabdicasiis baa ammaanay meel buu u dhiibay alaab buu xaraasho oo gadayey warkaasi warkay kutubta taariikhda ma aha 2 nin baa sheegay intaan oga
nin shiica ah oo ibnu nadiim la yidhaha saaxibu alfihrist ibnu alcadiim ma aha cayn iyo nuun bay ku kala duwayen cadiimku waa buqyatu talab fi taariikhi xalab ninka iskale ibnu nadiimka fihris kale ee shiicigaabaa wax ka mida sheegay qaybtana nin waa dambahay oo qarnigii 6 iyo waxoogii dhinto ibnu xamduun la yidhaha tadkira alxamduuniya oo adab balaaqoon taariikhaba laga cuskanin baa khudba meeshaa la sheegoon meel la sal ku haynin keene wa ilaa waxaa sugan fi taariikhi cumar cabdilcaziiz wuu u yeedhay khaylaan istataabahu wuxuu yidhi aayadda suuratu yaasiin bilowgeeda akhri wajacalnaa min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan markuu gaayuu yidhi istaag yaa ka dhigay sadiga ma garanayu yidhi wuu sheegay waan toobad keenay buu yidhi wuxuu yidhi cumar wuxuu ku diidana ma laha kumana qancin qalbigiisa kuma qancin ilaahay waxaan ka baryayaa wuhi haddaad waxaa ku noqoto cid qoorta ku jarta inuu kugu sallido markii khaylaan la dilayey wuxuu lahaa asaabatnii dacwatu rajuli saalix ninkii cumar ahaa ee suubanaa habaarkiisii ay ku dhacay in la yidhahdo cumar baa soo dhoweeyey warkii shiicada iyo waaraan sal lahayn wey taariikhda kutubtooda dib inugu noqdaa fiican laakiin dee sunnadii iyo kutubtoodii ninka cuqdada ka qabee shiicada iyo qurunka wax ka raadinaya waxaasoo kale inuu sheego waa caadi ninka la yidhaahdo waxaan ku arkay waa kuma markuu masaa'il ka hadlayey wuxuu hi anigu shaafici baan ahay furuuc baan ku khilaafsanahay nabad baan rumaysnahay dil 2 qof baan qabaa in la dili karo qof dagaalama iyo qof dilay wax kale qofkii haya ma jira buu yiri ciddii haya cid kaloo la dili karo xadiid casiiz ah ii keento mana heli karaan kutubta sunnadoo dhan haddii ku noqdaan celiya dhul isu keenaan oo yaa baray sunna in la isu keeni karayo in kale yaa baray waxaan rabaa 3 arrimood inaan idhaahdo kadibna wuxuu ku gabagabay halka wuxuu ku daray inuu leeyahay aniga dadkoo dhan waan heshiin karnaa laakiin nin maskaxdiisa dil ay qabto intuu madaxiisa taabto marna isu iman karno ummadda in lamid ayaan qabaana waa laha wuxuu ogyahay imaamu shaafici iyo ijmaaca a'immadu inay qabaan qofka zinaystay in la rajmiyo xadiithuna waa mutawaatir casiiz baan rabaa 2 wariye ninkii lahaa mutawaatirka ma ogola xadiidka mutawaatirka ah xadiiث الrajmi masalaة الrajmi gaar baan uga hadli doonaaye 20 صaxaabi ka badan baa nabiga ka wariyey salى الlaه عليه wasalam masalaة ridda waa diiday 12 baan anu garanayaa ka warisay nabiga salى الlaه عليه wasalam oo saxaaba war 2 ii keena 20 kana ma ogoli 2 ii keena 12 kana ma ogoli war jira maaha midda kale ummadda la isu keenaan qabaa muslimiinta waxay ku ijmaaceen xadu rajmigii waadna diiday qof raazani muxsana in la dila qabanayso imanka raatiri wuxuu ku hadlay qofka isma garanay miya muslimiinta in la isu keenaan rabaa qof dil madaxiisu ku jiranayso ma iman karno muslimiintina waxay ku ijmaaceen zaaniga in la dila anna ma qabo xagee sugu imanaysan marka qofku mararka qaarkood inuu garanayaa fiican wuxuu ku hadlayo afkiisa waxa ka soo baxaya uu ogyahay laakiin daqiiqada gudaheed isagu inuu isjalaafateeyo mid kale xadiidkana malacma xadiidka la yiraahdo casiiz kaliyaan rabaa yaa jiro culum muslimiina macnaheedu soo ma xadiid gariib lama aqbalay inama al-a'maalu bin-niyaat wa xadiid gariib sanad isagu dicaafkii buu aqbalaya saxiixina ma ogola mutawaatirkiina ma ogola mid 2 ii keen u leh oo mutawaatirkan fara badan haddaan 2 kaliya kaaga soo qaadin inta kale iska deena casiiska noqotay xageedgeed sunnadii ha kama keeni karaan oo sunnaba ma taqaanaysid ka ogaatay warba kama haysi sunnadii waxaa kaloon rabaa inaan idhaahdo ninkani wuxuu ka hadlaa cid allaalay cidduu wax ka hela buu ka qaataa wasiir jalaaludiin ruumi buu ka sheegay oon tacliiqin doonee cid kasta oo wax ka helaba wuu ka qaataa khawaarij buu ka qaadan raafiduu ka qaadan waxdatulwujuud buu ka qaadan طaa'ifa haaliya ee munxarifadaha o dhan buu ka qaadan falaasifadu ka qaadan laakiin wixii hawadiisa diida ijmaaca ummadda ma ogola waxyaabaha ka midkaa waxaa weeye ninkan aqoon darradiisa tilmaamaya wax qur-aanku sheegay buusan garan bahin inuu ceeb ka dhigaa kutubta ahlu kitaabka la soo dejiyey waa la taxriifiyey sax litaxsabuuhu min alkitaabi wa huwa min alkitaabi sax laakiin kulligeed ma wada baatil ba bas aan kala garan bee qayb saxaa ku jirta nacam qayb saxaa ku jirta
binasi alqur'aani ilaahay sooma dhihin nabigiisa sal ly salam isagoo dadkii la hadlay wa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan limaa bayna yadayhi min alkitaabi wa muhayminan calayh wuu u rumaynayaa ilahay sooma dhihin qul fa'tuu biاtawraati fatluhaa in kuntum saadiqiin ilahay soo ahlu kitaabka intuu la hadlay ma dhihin aaminuu bima nazalnaa musadiqan limaa macakum kaad haysataan oo kay haystaan wax xaqaba hadduusan ku jirin sidee buu musadiq rumaynaya u noqonayaa ahlu kitaabka kutubtii waa la taxriifiyey waxbaa laga bedelay wax xaqi ka midana waa haray wax halaalay wixii sharcigeenna waafaqsan sharcigaa daliilu ah inuu xaq yahay lakiin isagu waa isdabamariyo wax kasto ay iswaafaqaan oo sunno ku yimaada yuhuud soo dhumatay buu ka dhigay nabigu sooma dhihin xadiثu can bani israa'iila walaa xaraj ninkan waxaaba ka maqan kutubtan ahlulkitaabka ee la taxriifiyey qayb xaqii oo baaqi ah ku jira qaybtaasi waxay waafaqsan tahay qayb kamidihii wixii aan la nasakhin sharcigeennay waafaqsan tahay qur-aankaa caddeeyey sunnada nabiga alay sl slam saas darteed baa maalinkii rajmigii la rajminayay qoladii yuhuudda zinaysatay ee nabigu xukumay layidhi kitaabkiinii keena gacantay saareen cabdillahi bni salaam baa yidhi halka ay qarinayaan bay ku taallaa ee ka qaada dheh markay ka qaadeen iyadoon la bedelin baa la arkay sharcigeenni iyo kii waa iswaafaqay nabiguna xaddii waa ku fuliyey macnuhu nabigu diin yuhuud buu qaatay miya oon xaq ilaahay ka iman ninkan maba garanayaba waxaa qur-aanku sheegay musadiqan limaa macakumtan maba garanayaba waxaan ku soo gunaanadayaa waad ila daawan doontaan kiliibka soo socda man huwa kashki markuu ka hadlaya daqiiqadda 9 iyo wax yar markay marayso wuxuu keenayaa erey jalaaludiin aruumi uu leeyahay ninkii aasaasay ariiqa almawlawiya wey imaam mawlaaya jalaaludiin aruumi raximahullah hadalka uu yiri ayaan jeclaa aniga inaan ku dhaqmo wuxuu yiri markaan fiiriyo diintii iyo khalqigii waxaan ka dhigay yiri labadayda lug waxaan ka dhigay tan loo isticmaalo ay isticmaalaan dadka injineerada ma aqaan Soomaali wax lagu yiraahdo injineerada waxay isticmaalaan bahal maduuc leh dhibic leh oo laabisna mid inuu dhexda ku suura kala ku wareejiyo Soomaa goobo markuu rabo inuu sameeyo lugahayga waxaan ka dhigay yiri taas oo kale hal lugna waxaan ku taagay shareecada hal lugna waxaan ku soo wareejiyay 7 firqo kulli waxaan soo gashay xeradayda waxaan la kala daadinayo dhan aniga waan soo aroosay inta firqo jirto 7 firqo la sheegayo dhan waxaan soo gashay xeradayda aniga ninkaas tusaaleeya waan nacbahay dadka in la kala daadiyo jalaaludiin aruumi wuxuu yiri buu leeyahay aniga labadeeda lugood injineeradu ku matalayaa iyo mid dhaxda lagu qotomiyo halkaasaan saaray buu leeyahay lugta kalena 72 firqaan soo ururiyey aniga isagaa tusaale ii ah buu isagaan ku daydaa tusaaleeya imaam mawlaaya jalaaludiin aruumi raximahullah hadalka uu yiri ayaan jeclaa aniga inaan ku dhaqmo wuxuu yiri markaan fiiriyo diintii iyo khalqigii waxaan ka dhigay yiri labadayda lug waxaan ka dhigay tan loo isticmaalo ay isticmaalaan dadka injineerada ma aqaan Soomaali wax lagu yiraahdo injineerada waxay isticmaalaan bahal maduuc leh dhibic leh oo laabisna mid inuu dhexda ku suura kala ku wareejiyo Soomaa goobo markuu rabo inuu sameeyo lugahayga waxaan ka dhigay yiri taas oo kale hal lugna waxaan ku taagay shareecada hal lugna waxaan ku soo wareejiyay 7 firqo kulli waxaan soo gashay xeradayda waxaan la kala daadinayo dhan aniga waan soo aroosay inta firqo jirto 7 firqo la sheegayo dhan waxaan soo gashay xeradayda aniga ninkaas tusaaleeya waxaa habboon inaan garanno man jalaaludiin aruumi cabdiqaadir kashki tusaalaha waa isku daydo muxuu rumaysan yahay jalaaludiin aruumi jalaaludiin aruumi wuxuu rumaysan yahay ilaah oo suuro aadama ku soo baxay inuu yahay buu rumaysnaa inuusan aadam ku abtirsanin buu rumaysnaa inuu yahay muslim
oo kristan yahay oo yuhuud yahay oo hunduus yahay oo zaraadishta yahay buu rumaysnaa. aqwaashiisaan ku aqriya dhegeyso. jalaaldiin aruumi wuxuu leeyahay, waan macnayn doonaa dadka carabiga garanaya ayaan carabiga u akrinayaaye marka hore hay dhegaystaan. wuxuu leeyahay jalaaldiin aruumi, nafsii ayuha nuuru lmushriqu laa tana canii laa tana canii, xubii ayuha almashhadu almuta'alliqu laa tana canii laa tana canii, انظر إلى العمامة أكورت أحكمتها فوق رأسي، بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري. زرادشت زنار كي قال هذا اللوحي شري قبين لين عنكو قبايا فيري. لا بل أحمل النور فلا تن عني فلا تن عني، مسلم أنا ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي، توكلت عليك أيها الحق الأعلى لا تن عني لا تن عني، ليس لي سوى معبد واحد مسجدا كان أو كنيسة أو بيت أصنام، ووجهك الكريم فيه غاية نعمتي، فلا تن عني فلا تن عني. وحكم هذا الذي يسيحوا لي هي وحاد في رسالة عمامات دايدة أن صفي عن أوحري مدحيق كوركيس، وحاد فحان حنبارسانا هايبو وحجري وحان حنبارسانا وحاد كلوت في رسالة زناركي سونكي ويناية كورك أهلو كتاب كذمة المسلمين تهن لوغو حدي جري قولي زرادشتدا اللي يرادون هالكا دحدا كو قبو كليدي دين هذا كفيري بوليه نور بان حنبارسانا هيا فوغانين، مسلم أنا مسلم بانه ولكني نصراني هذا كريستان بانه، وبرهمي هندوس بانه. براهيمدو واقيب هنديغا طبقات كسدحدا تنوغو سريسay dhahan way، وزرادشتي بانه. توكلت عليك أيها الحق الأعلى بان تلا صارتي فلا تنع عني هيغا فوغانين، ليس لي سوى معبد واحد. هل ميلو لو عباديستو مان له مسجدان ها نقدو كنيسة ها نقدو قولي أصنام كجيران ها نقدان. طيب ninkaad ku dayato ee adiga qudwada kuwa Abdulqaadir Kashkiyo Jalaaludiin Ruumi way adana yiri Jalaaludiin Ruumiga aad ku dayanayso ee mithaalka kuwa ummadii muslimiinta iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo aymadii baa cid mithaal ku noqota ka weyd waxaa heelada haddana wax ku jirin maca habeenkii loo tumaa inta saxaaba iyo jaashi muslimiinta dad akhyaara joogeen maxaa kugu kulmiyey Jalaaludiin Ruumi iyo Jacd ibn Dirham iyo Ghaylaan al-Qadari iyo falaasifada maxaa kugu kulmiyey iyo mustashriqiinta kullu inaain bima fihi yandax. waxaan marraba kelimadayda intaa ka badan aan si iraahdo laakiin waxay la arki doontaan xalaqadaha soo socda baan hoos u geli doonaa intaa guud ahaan waxa ninkan yahay bay ahayd. waxaan ka hadli doonaa ninka Kashki la yiraahday isagoo inkiraya qadarka Ilaahay wax qadaray oo leh waa caqiido yuhuud oo muslimiinta u gabatay saxaabadii warisa xadiis al-qadarka aflagaadeynaya xalaqada soo socota sug insha Allah taala. midda xigta isagoo ku faanaya madhabkii Jacd ibn Dirham inuu qabo ee diiday kallama Allahu Muusa takliiman اتخذ الله إبراهيم خليلا isagana insha Allah xalaqada dambe xigta iyadana sug. waxaa kaloo sugtaa isagoo sunnada nabiga caayaya oo aflagaadeynaya oo ka dhigaya fidnada iyo aafada iyo khilaafka muslimiinta ka jira 90% inay sunnadu sabab u tahay sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam. iyadana xalaqa xigta baan ku soo qaadi doonaa iyadana sug. waxaa kaloo sugtaa isagoo xuduudii naska iyo ijmaacu isku raaceen axaadiisuna mutawaatirka ahayd beeninaya oo warkii uu yidhi casiizii kaana war ka duwan odhanaya maalinba meeshay ka qabato iyo halka maqaamku u maraya wixii afkiisa uu doono ee danay ka gasho weeye diin kaloo xidhaysaa ma jirta ninkani. intaas iyo wixii kale dib kaga soo kordha ayaan xalaqaadka soo socda ku qaada dhigi doonaa intaan xalaqada dambe ee tan xigta iskaga imanayno in kufriyaadka Cabdulqaadir Kashki ee Canada jooga
ku qaadaa dhigi doono maqal iyo muuqaal aan idinka soo hordhigi doono waxaan idinkaga tegayaa si ay nabadgeliyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.